maogtahay in waddanka Denmark uu leeyahay dhaqan yaab leh kaasoo aadan rumaysanaynin haddii qofku gaadho da'da 25 jirka isagoo weli dooba amba aan guursan rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee dalka Denmark marka la joogo qofkaas waxa lagu xidhayaa tiir amba geed kadibna waxa lagu buufinayaa amba lagu shubayaa qasaacad qorfa amba sinimoona. tani waa dhaqan ay saaxiibada iyo qoysku sameeyaan si ay si fudud ula kaftamaan qofka guur lagu kari waayay. haddaba haddii uu qofku gaadho da'da 30 jirka walina uu doob yahay waxa la sameeyaa wax ka sii qosol badan tii hore halkii laga isticmaali lahaa qasaacad qorfa markan waxa lagu buufiyaa basbaas sidiisiya. dhaqankan wuxuu ka turjumayaa sida marka la joogo Denmark uu guurka iyo lamaanuhu muhiimka uga yahay iyo in dhaqankan yahay mid qosol iyo farxad leh iyadoo bulshada lagu baraarujinayo guurka. haddaba daawada su'aal adigu meesha aad ku nooshahay qofka marka guurso lagu kari waayo sidee ayaa loola dhaqmaa sawaatee da'da ugu fiican ee tay qofku inuu ku guursado qaybta commentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saarana aad subscribe dhahdo.